الرحمن الرحيم قلبت هاتي أنا أبو فرح سناي كسوق يبقلك كسوق يبقشين أودياشا دلنيردا علماء دينك أرتيدا دمان وما سنتين وأنا إذن سلامي وأنا إذن كسلامي قل يتمنى أفرتا قرآنك عددي سأني كسلامي يعني سلام كتب iskuulkii degmada Macdaay waa Sheikh Maxamed Primary and Secondary School. Iskuulka waxa uu furan yahay 5 sano ayuu furan yahay. waxyaabo badan oo waxqabad ah ayuu soo mariyay iskuulku. waxyaabo badan oo iftiin ah ayuu soo mariyay iskuulku. waxa uu indhaha u kala qaatay dadkii degmada joogay isdhahay waxbarashadu way adag tahay. ma ahan wax la baran karo. maanta degmadayna Macdaay waxay la simantahay degmooyinka kaleento oo la jaarka ay la simantahay. haddana waxaad dareemaysiin khudbada hadda iga horeysay dad badan marka la qabtay markaas imtixaankii ugu dambeeyay dawladda ay qabatay dad badan oo reer Macdaay ah inay ka qayb galeen. dadkaas oo asaasi u ahaa ama ka dhismay degmada Macdaay uga baxay dugsigooda hoose dhexe ilaa iyo dugsi sare fooman gaaray ugu baxay hadina ku dhameystirtay markaas Jowhar iyo magaalo madaxda markaas Muqdisho. imtixaankii marka la galay waxa galay markii hore reer Macdaay ma ka dhex muuqan jirin imtixaanka dawladda laakiin sanadkan aad ay ugu dhex muuqdeen. waxa ka dhex muuqday arday badan oo gaarayo 20 ilaa iyo 30 gaaraya ka dhex muuqday oo degmada Macdaay ah. intoodiina alxamdulillah ilaahay ma hada iskale dhamaantoodna wax dhacay ma jirin ilaa iyo inay baasaan maayeen. haddana meeshan waxa ka dareemaysiin ninka ugu horeeyay kaalinta ugu horeeyay galay ama wiilka ugu horeeyay kaalinta ugu horeeyay degmada markaas galay inuu ka soo jeeday degmada Macdaay. haddana intooda kaleento inta badan waxa ay galeen kaalintii ugu horeysay ama tobanaad ay galeen amba waxay galeen boqolkii ugu horeeyay galeen reer Macdaay san wadanahay. hadda waxaana la taagan wiil galay kaalmihii ugu horeeyay ee dawladda ay qabatay kana soo jeeday degmada Macdaay aan u bilaawno aasaasigii annaga aan ka dhisnay ilaa iyo hadda marka inta uga baxay dugsiga dhexe xagana dugsiga sare ka dhameystirtay. marka aad iyo aad ay u mahadsan yihiin ardaydaas waalidiinta ku dadaashayna aad iyo aad ay u mahadsan yihiin macallimiinta juhdiga dheeraad ay gelisayna aad ay u mahadsan yihiin. marka degmadayna aan isbaraarujino aan u soo jeesano inaan wax barano. qofku inuu wax barto waa muhiim naftiisa muhiim u tahay waalidkiisa muhiim u tahay ilaan waalidka wuxuu ka neebsanayaa dacwadii badneed iyo doodii badneed iyo walwalkii uu ardaygiisa ku hayay oo cunugiisa ku hayay. marka waxaan leenahay waalidiinu kaca arka inay degmada wax baranayso. iskuulku waa furan yahay. maadooyinka lagu barto maadooyinka dugsiga sare lagu barto iyo maadooyinka dugsiga dhexe lagu barto iyo maadooyinka dugsiga hoose lagu bartaba inta kama wareebanaba علونت الدين الإسلام كمرة بنا. الأول وحال غفر فراوة تربية الإسلام وحليها كجرو. وحنا لقدقا حديثة إيو آياتها إلهية لقدقا. وحكى لنا تاكو حيقول لقد عربي قال لقدقا دكسي قهوة سمرك إيتاي. لقد عربي قال توسعك بحلا. وحكى لنا تاكو لقد سومالي قال لقدقا. مركا انت أسبو وأرضيك انت لقد ساي حساب تاكو جرتو هو أساسي. وعدين كل مركا لقد سو والسكال جود بايا دكسي قهوة iyo dugsiga dhexe waa iskala gudbaya waxa loo gudbaya dugsiga sare ayaa loo gudbaya dugsiga sare marka loo gudbo al-awwal waxa uu horeynayo maadada sarkiisa islaamiga uu horeynayso waataas meesha ka muuqato maadada islaamiga uu horeynayso oo markaas aan shariica islaamiga looga hadlayo maadada kale inta ku xigto waxay tahay maadada markaas aan carabiga luqadda carabiga ku xigto waxa ku sii xigta hadina maadada Soomaaliga ku xigto luqadda Soomaaliga ku xigto markaas kidaba English iyo geography iyo chemistry iyo physics iyo xisaab iyo waxyaabaha noocaas la aalaya qofka shariica islaamiga marka uu bartay xataa kamareeban inuu xisaab barto ilaan waxa soo galayso xukuna soo galayo oo waxa soo galayso dhaxala soo galayo hadii uu san xisaab aqaanin waxa uu maleynaa inuu san dhaxalka kala saari karin ba wax kasta uu bartaba marka ardaydu iyo markaas waalidiintu iyo dhalinyaradu
waxaan u sheegaynaa iskuulka kan inuu maanta furan yahay una furan yahay dadka degan degmada Mahadaay lana rabo degmada Mahadaay inay ku baraarugto iskuulka inuu furan yahay maadooyinka saxda ah oo laga baranayna ay intaas yihiin intaas waxa dheer degmada Mahadaay yayna isdhiin degmadan ma ahan mid wax lagu barta mid burburtay waaye yaan isdhiin degmadu way taagan tahay macallimiintii waxbaraysi way taagan yihiin waxa oo la baranayna waa wax caam ah oo meel kasta iskuul kasta hadii aad u tagtidna waxaan inta aad ku baranaysaan maanta degmadu waxay fursad u haysataa oo shaki ku jirin in ay tahay degmadu ardayga maanta waxaan sanadkan waxaan taaganahay form 4 waxaan ka soo bilownay 1 iyo 2 kow iyo labaan ka soo bilownay maanta waxaan taaganahay form 4 oo dugsi sare ah inaan markaas imtixaankii dawladda aan ka qayb galno saasan taaganahay marka waxaan rajaynaynaa intaas dadaal waxa soo sameeyay rag badan oo markaas oo inta taagan ama waalidiin ahaato amba markaas oo ardayda qaarkeed ahaato ama guddi ahaado intaas waxa soo sameeyay raga soo sameeyay marka hadina waxaan fursad u helnay degmadayna inay noqoto shahaadi inta badan waxa la iska dawadaa iskuulka inuu shahaadi ahaan maanta waxaan halkan ka cadeynayaa inuu iskuulka shahaadi yahay ardayga markaas oo form 4 ka baxan waxa lagu arki doonaa shaashadaha markaas oo Soomaaliya laga dhax arki doonaa sida shaashadaha hadda aad uga dhax aragteen kuwa hermaadayga oo wada naqaano oo ka muuqday ayaad uga arki doontiin idinkana shaashadaha insha Allah hadii Ilaahay raado waxaan rajaynaynaa ardayda form 4 ka inay dadaalaan kuwa form 3 ga inay dadaalaan si ay markaas dadka maanta hurdaayo oo degmada nala degan ay hurdada ugu baraarugaan ilaan inta badan degmada waxa laga aaminsan yahay inuu san shahaadi ahayn iskuulku laakiin maxaan hortiina maanta ka cadeynaya iskuulku inuu shahaadi yahay ardayga ka qalin jibiyeen oo la mid yahay ardayda oo joogta Soomaaliya dhamaanteed marka ardaydu waxaan leenahay kaalmo fiican inaad ka gashaan dadaashaan wax barataan saasan rajaynayaa waalidkan waxaan ku baraarujinayaa in ay ka qayb qaataan waxbarashada degmadooda taala waxbarashada qof kasta gurigeeda iyada dhisata iyadana dumisaan marka insha Allah haduu leeyahay waalidow waxaan leenahay ka ubadkaadi wuxuu u rabiyaa inuu wax barto jaahilnimo waa laga fiican yahay jaahilnimo inta naga ahaato hadda aan u baxno iftiinka degmooyinka kale inta waxa la yiraahdaa haduu cid sacbayna xaalada sacbay kada sacbay micnaheedu waxay taagan tahay waa arkaysiin goboladii waxaan ugu dhaw markaas degmada Jowhar aan ugu dhaw inta iskuulka ka furan ma leeyahay kan iskuulkan kaligiisa furan iskuulkiina saan u taagan yahay marka insha Allah hadii la yiraahdo degmooyinka kale inta waa dareemi karteen degmooyinkaas kale inta jahliga way ka cabsadeen anaga jahliga ay ka cabsadeen ma cabsanayni miya ubadkaana waxbarasho u rabnima ubadkaas kale inta asaga 9 bilood lagu dhalay kaanina 9 bilood lagu dhalay wax ma baranayo miya kaas leema wax baranaa aan gacno waxbarashada waa u simanahay mana aan mid loo kala saara فقير تاجر لوكال سارة ما أهم جد ما لو قيب سنة هدنا قيب أهم قف كستوى ما لو قيب سنة وحبرشات تالو أقوانا تالو أنت مادي أكبح لنا واقع الواردين تيني كبر أرجان وحبرشدي أي كقيب قاتان أنت جهد دجمدوا إني أسود جيشتا إني وحبرته وبتكادنا أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته